waa barnaamijkii 3 magaalo waxaana ku soo qaadan doonaa 3 magaalo ee kala ah Bangkok, Lagos iyo Los Angeles. Bangkok waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn uguna dadka badan boqortooyada Thailand, waxaana ku nool dad ku dhow 10 milyan. waxay dhacdaa wabiga Chao Phraya ee ku dhamaada ama biyihiisu ku shumaan gacanka Thailand. waana mid ka mid ah Bangkok labada meel ee kaliya ee ismaamulka ah, waxayna ka kooban tahay ilaa 50 degmo. 35 ka midana waxay dhacaan dhanka wabiga Chao Phraya. marka la eego luqadda Thaiga, wuxuu magaca magaaladan oo dhameystiran noqonayaa sida tan, waxayna magaaladan buugga rikoorada ee Guinness World Records ku gashay inay tahay magaalada ugu magaca dheer. magaceeda ah Bangkok ee maanta loo yaqaano dadka reer Thailand ma aysan aqoonin xitaa kolka ay noqotay caasimadda ee 1782. magaaladan intii u dhaxaysay 1980 ilaa 1990 waxay ahayd midda hogaamisa magaalooyinka kale ee dhaca koonfurta bari ee qaaradda Aasiya, waxayna ahayd midda maalgashiga ugu badan hantisa. shirkadaha ajnabiga ee ku badan magaaladan waxay ka dhigeen awood gobol, gaar ahaan marka la eego dhanka maalgashiga, ganacsiga, siyaasadda iyo dhaqanka. waxayna 2009 noqotay magaalada labaad ee ugu qaalisan xagga maciishada, waxaana ka horeysay oo kaliya Singapore. magaaladan waxaa laga helaa suuqa ugu weyn caalamka ee toddobaadlaha ah, waxaana lagu magacaabaa Chatuchak, waxaana la furaa habeenka Sabtigu soo galayo ilaa Axadana albaabadiisa lama xiro. waxaana maalintii booqdaan 200 ilaa 300 kun oo qof. waxay cilmi baarayaal badan sheegeen in magaalada levelku biyuhu ka sarmaraan 2 ilaa 2.5 sentimitir sanad walba, waxayna xusaan in mustaqbalka dhow khatar ugu jirto Bangkok inay qarqoonto ama biyuhu qariyaan. waana mid la moodo magaalada Venice ee dalka Talyaaniga. magaaladan waxaa ku badan macaabidda, intooda badanna waxaa la hirgeliyey dabayaaqadii qarnigii 18aad. sidaasi daraaddeed waxaa laga helaa sanadka ugu weyn ee dahab ah loona dhisay aasaasaha diinta Buddhism-ka ee lagu magacaabo Buddha, waxaana lacagta ku baxday sanadkan lagu sheegaa 250 milyan oo dollar. ciidamada dabdamiska ee magaaladan, shaqada dabdaminta waxaa u sii dheer shaqo kale oo adag tahay inay dadka intooda badan ku dhiiradaan. ciidanka dabdamiska ee Bangkok kaliya lama waco marka uu dab kaco, ee sidoo kale waxaa laga wacaa goob walba oo lagu arko mas. waajibaadka saaranna waxaa ka mid ah inay qabtaan masaska lagu arko magaalada. waxaana shaqadan masqabashada ah sanadkan aynu ku jirno oo kaliya la soo ogeysiiyey ciidanka dabdamiska in ka badan 22,000 oo jeer. magaaladan waa mid aad u kulul, gaar ahaan bilaha March, April iyo May, waxayna qabowdahay bisha 11 ilaa bisha 2. magaaladan waxaa ka jiraan sharciyo cajiib ah oo ay tahay inuu ka digtoonaado qofka ku cusub, waxaana ciqaab lagu mudan karaa inuu qofka gurigiisa ka soo baxo asigoo aan wadan dharka hoosgashiga, iyo in xitaa uu gaariga kaxeeyo asigoo feero qaawan. waxaana waajib ku noqonaysa inuu ixtiraamo lacagta dalkan maadaama uu ku sawiran yahay boqorka dalkan. Lagos waa magaalada ugu weyn Nigeria uguna dadka badan galbeedka Afrika iyo xitaa guud ahaan Afrika, waxayna noqotay magaalada ugu koriinka badan Afrika dad ahaan, waxaana lagu sheegaa dadka degan gudaha magaalada 13 milyan, balse marka lagu daro dadka degan hareeraha iyo tuulooyinka magaaladan, tiradu waxay noqonaysaa 21 milyan. waa magaalo qaabili karta dad kala duwan oo aan ku midaysnayn dhaqan, af iyo diinba, waxayna soo dhaweysaa faqiir iyo taajirba. waxay dhacdaa isla gobolka magaceeda sita ee Lagos, waxayna si rasmi ah caasimadda Nigeria u noqotay kadib markii ay Nigeria xurnimadeeda qaadatay ee 1960. waxayna xilkaasi haysay ilaa 1991 kolkaas oo ay Abuja kala wareegtay taajka caasimadnimo. laakiin Lagos waa caasimadda dhaqaalaha ee dalka Nigeria, waxaana sidoo kale loo tixgeliyaa inay tahay albaabka laga galo galbeedka Afrika. marka la eego dhaqaalaha Lagos waa mid aysan ku soo dhaweyn magaalooyinka kale ee galbeedka Afrika. 80% oo ah waxyaabaha dibadda laga keeno ee Nigeria loo dhoofiyo ayay kasbataa magaaladan, waxaana magaaladan degan ninka ugu taajirsan Afrika ee Aliko Dangote. waana magaalada afraad ee ugu qanisan Afrika, waxaana ka horeeyaan oo kaliya Johannesburg, Cape Town iyo Qaahira. sida guudna magaaladan waxaa loo qeybiyaa 2 qeybood oo kala ah Lagosta dhulka weyn iyo Lagosta jasiiradda ah. Lagosta weyn ayaa dad badan isla markaana dhaqdhaqaaqa ganacsigu ku badan yahay. buundada lagu magacaabo Ibrahim Babangida
oo isku xirta labadan dhinac waa buundada ugu dheer Afrika. Magaaladan waa xarunta dhaqanka iyo madadaalada ee Afrika, waxaana degan fanaaniinta ugu waaweyn Nigeria iyo dadka caanka ah ee dadka ka qosliya. waana xarunta 20 shirkadood oo soo saaraan aflaamta, waxaana ugu caansan shirkadda laga yaabo inaad intiina badan taqaanaan ee Nollywood. magaaladan habeenkeeda iyo maalinteeda waa ay kala duwan yihiin, waxayna dadka xiiseeyaan waqtiga habeenkii, waxaana siyaada dhaqdhaqaaqa goobaha la isugu yimaado, waxaana jidadka magaaladan si weyn loogu iibiyaa cuntada la yiraahdo suya, waxaana maalin iyo habeenba lagu arkaa magaaladan ciriiriga ama jaamka jidadka. Lagos ayaana ah magaalada laga helo dhismaha Nicom oo ah dhismaha ugu dheer galbeedka Afrika, waxaana la dhameystiray 1976. Los Angeles. mar haddaan Bangkok ka sheekeynay waa inaan sidoo kalena ka sheekeynaa Los Angeles, maadaama ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee ka soo jeeda Thailand ee ku kala nool daafaha caalamka marka laga yimaado dalka Thailand. sidoo kale mar haddaan ku sheegnay Lagos inay tahay magaalo ay degan yihiin shirkadaha ugu caansan ee sameeya aflaamta ee Afrika, sidoo kale Los Angeles waa xarunta Hollywood iyo halka laga helo qaar ka mid ah jilayaasha caalamka ugu caansan. ayada ayaana ah magaalada ugu caansan caalamka dhanka sameynta aflaamta, oo waxaa ka dhacda maalintii in ka badan 100 shaqo oo filim sameyn ah. waxay 2 jeer martigelisay ciyaaraha Olombikada sanadihii 1932 iyo 1984, sidoo kale koobkii adduunka ee lagu qabtay Mareykanka 1994 waxay ahayd Los Angeles magaalada martigelisay ciyaartii finaalka. magaca magaaladan wuxuu ka yimid luqadda Isbaanishka, markii ugu horeysay ee la aasaasayna magaceedu sida Bangkok oo kale ayuu u dheeraa sida tan ayuuna ahaa. waxaana Los Angeles lagu naanaysaa magacyo badan sida magaaladii dadka caanka, La La Land, magaaladii ubaxyada iyo caasimadda warbaahinta. marka laga yimaado New York, magaalada labaad ee ugu dadka badan Mareykanka waa Los Angeles, waxaana ku nool dad 140 jinsiyad ah. guud ahaan dadka degan tiradooduna waxaa lagu sheegaa in ka badan 4 milyan, balse magaaladan waa midda toddobaad marka la eego badka ay ku fadhiyaan magaalooyinka kale ee Mareykanka. waxay dhacdaa gobolka California ee ah gobolka ugu qanisan guud ahaan gobolada Mareykanka, waxayna Los Angeles ka dhaqaale badan tahay dalal badan oo caalamka ah sida Sweden iyo Switzerland. airportka magaaladan waa midka labaad ee ugu mashquulka badan dalka Mareykanka, waxaana ka mashquul badan oo kaliya garoonka Atlanta oo sidoo kale ah midka ugu mashquulka badan caalamka. laakiin Los Angeles waa magaalada laga helo madxafyada ugu badan ee dalka Mareykanka, waxayna tiradoodu gaaraysaa 300. magaaladan waxay la gaar tahay xeebaha bacaadka ee cad, waana magaalada saddexaad ee leh xeebaha bacaadka ee ugu dheer caalamka. Los Angeles waxay ka tirsanaan jirtay Mexico, waxayna gacanta Mareykanka gashay intii uu socday dagaalkii Mexico iyo Mareykanka, gaar ahaan 1848.